ninka nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi islaamka waxaan qabsado oo aanan sii daynin ii sheeg nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay xuskiisa mar kastaba laazim waayo ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala qalbiguu dejiyaa oo hamiga iyo warwarku qofka ka bi'iya oo laabtiisu ballaadhiya oo arsaaqda ilaahay ugu furaa oo cadowgaa lagaga guulaystaa ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa markaynu kelinahay iyo markaynu bulshada la joogno iyo mar walba inayna ilaahay xusno wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan wakhiifa baa ilaahay rabbigaa xus adoo isu dhuldhigaya iyo adoo ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala oo marnaba ha ka mid noqonin baa la yidhi walaa takun min alghaafiliin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala moogan ha ku biirin sida awgeed ayaa waa kii xadiidkii tilmaamayay aakhiro carshuraxmaanka dadka hadhsada maalin dadku qaawanyay dadku dhiban yahay 50 kunoo sannadood u dhiganta cadceeddu soo dhowdahay mashaakil aada u tiro badan leh uu jiro ayuu nebigu wuxuu tilmaamay dadkaas ilaahay uu kurbadaa dhaafiya waxaa ka mid ah warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa qof ilaahay xusay isagoo keligiiya cidna la joogin oo dabeetana ishiisa ilma ka daaday ama ilma ka dareertay ayuha alaxiba cibaadaadka oo dhami dikri way noqon karaan cibaado khaasa oo carabka iyo qalbiga ku gaarana dikri way noqon karaan cibaadaadka oo dhami dikri way noqon karaan oo dee waxaa layna faray dikri aada u tiro badan leh inaynu la nimaado mutlaqa waxaa laynaga reebay wixii dikriga ka soo horjeedo ah khaflada inaynu alle subxaana wa tacaala marnaba khafla kaga sugnaano ayaa laynaga reebay waxaa laynoo sheegay walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ha ka mid noqonina kuwa ilaahay hilmaama ka taga ilaahay xusuusan waaya kuwa ilaahay naftoodu ilowsiiyaa markaasi waana faasiqiin baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala sida awgeed qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa haddaynu ilaahay in badan xusno inaynu liibaanayno kelimatu lfalaax fi lqur'aan inta badan waxay u soo aroortaa guul adduuniya aakhiraba waa shayga ugu ballaadhan ee guul tilmaami karaa la yidhahdaa kelimatu lfalaax erayada kale najaax iyo waxaas waxa laga yaabaa guul koobano ama adduunyo ama wakti gaabana inay tilmaamaan laakiin erayga alfalaax la yidhaahdo fi dunya walaakhira buu sheegaa inuu qofku guulaysanayo ilaahayna wuxuu leeyahy wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun wadkuru llaha kaiira ilaahay in badan xusa waxaa mudantiin ama waxaa xaqiiqa inaa guulaysanaysaan baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaa in badan ilaahay inoo tilmaamay waxyaabahan bini aadamka mashquuliya inaynu iska ilaalino oo waxyaabaa jira haddii ay agtaada ku weynaadaan ilaahay ku ilowsiiya kuu dhow marka hore oo ilahay wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri اllah waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun war dadka muuminiinta how baa ilaahay leeyahay yay idinka mashquulin xoolaha iyo caruurta ilaahay xuskiisa yay idinka mashquulin waxaa laga yaabaa qofku markuu aada uga warwaro xoolaha iyagunbuu ka shaqeeyaa waxa kaleba wuu ilaabaa maruu xisaabiyo maruu kala wado maruu dirayo maruu baadidoonkeedayay adduun buu noloshiisa o dhan ku mashquulinaya ama maahee caruur iyo korintood iyo baabkan buu mashquul ku yahay ilaahayna wuxuuna leeyahy subxaana wa tacaala labadaba waxaa ka mudan ilaahay inaad aada u xusto marka ilaahay xuskiisa yuu ku ilowsiinin baa ilaahay leeyahay adduunyada maalka iyo caruurta iyay ku ilowsiinin cidda caynkaasi ku dhacda baa ilaahay leeyahy way khasaarta cidda caruur
iyo xoola kaga mashquusha ilaahay dikrigii way khasaartay baa alla tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. waxaa ilaahay inoo sheegayaa ilaahay xuskiisa natiijooyinka ugu waaweyne ka ratima resultska ugu waaweyne la hele ka ratima inay ka mid tahay in ilaahay adigana ku xuso. bini aadamku magac iyo maamuuska uu jecel yahay. adduunka inta badan siyaasiyiinta iyo madaxda iyo waxay u doonaan powerka waxa kaloo ka sii mudan sheeg iyo magac iyo maamuuska in la yidhaahdo his highness his excellence iskada erayada in lagu isticmaalo fakhaamatu ra'iis fakhaamatu lmalik. erayada tani waa qofku ammaan buu rabaa, laakiin iyomaa khayr badan in bini aadam ku ammaano iyo in rabu samaawaati walardi inuu ka ammaano ku sheego. ilaahay agtiisa inaad qof magac iyo maamuus kule noqotid iyo inaad khalqiga iyo makhluuqaadka agtooda magac iyo maamuus ku yeelato waxa hubantiya inaanay marnaba sinnayn. ilaahay markaa wuxuu leeyahy fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun. ixusa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, aniga sheega oo magacaaba. ilaahay sheegistiisa waa inaynu badinnaa oo waa maxay? maraynu ammaanayno, maraynu dadka barayno ilaahay subxaana wa tacaala iyo ku xidhayno, maraynu isaga u tukanayno la hadlayno, ilaahay sheegistiisa waa inay nolosheenna ku badataa. ilaahay markaa wuxuu leeyahy haddaa aniga i sheegtaan anna waa idin sheegayaabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay agtiisaa dad magaca le ka noqonaysa. washkuru lii walaa takfuruun. ilaahay hadduu ku sheego waxaad noqonaysaa qof nolosha degan, amniya ammaan hela, raalli ahaanshiya hela, noloshiisa muwafaq noqda, mid khayrka la waafajiyo, xifdi hela iyo ilaalin, guulaysta ayaad soo baxaysaa. sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay utlu maa uxiya ilayka min alkitaabi waaqimi الصalaaة ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar waladikru اllahi akbar wallahu yaclamu maa tasnacuun. ilaahay wuxuu leeyahay nebiga isagoo la hadlay calayhi الsalaatu wasalaam wixii lagu waxyooday dadka ku dul akhri, salaadana oog. salaadaasi xumaha oo dhan iyo wixii sharcigu diiday iyada kaa reebaysa. waladikru llaahi akbar baa ilaahay yidhi, ilaahay xuskiisa baana weyn. waladikru llaahi akbar waa maxay? mufasiriinta iyo culammadu tafaasiir tiro badan bay sheegaan. yacni waladikru llaahi akbar ay akbaru lcibaadaat. ilaahay xuskiisa ayaa cibaadaba u weyn baa la leeyahay. ama maahee salaada waxaa ku tukanaysaan oo dhan haddaa ilaahay xustaan, ilaahay xusidiisa ugu weyn waxaa qabanaysaan oo dhan. ama maahee waa masdarun mudaafun ilaa faacili. ilaahay xusida idin xusayaabaa ka weyn salaada xusida idinku ku xusaysaan. waladikru llaahi lakum yacni aw iyaakum. xuska ilaahay uu isagu idin xusayo ayaa ka weyn xuskaa isaga xusaysaan. salaadan aad tukanaysa iyo cibaadaadkan waxa ka weyn ilaahay xuska uu idin xusayo. ama maahee ilaahay xuskiisa wuxuu ka weyn yahay in macahu ay dhacdo alfaaxishatu walmunkar. tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar baa lay waladikru llaahi akbar. ilaahay inaad xustaaba ka weynba inay dhacdo an takuuna macahu alfaaxisha walmunkar wakada. ama maahee waxaad salaada tukanaysaan oo dhanba waxa ugu weyn ilaahay xuskiisa. salaada maxaynu qabannahay? cibaadadan markaynu samaynayno ilaahay baynu in badan xusnaa. faatixadu ilaahay bayd ku xusaysaa. markaad rukuucdo subxaana rabbiya alcadiimi baa ilaahay baad xusaysaa. markaad samica allahu liman xamida leedahay ilaahay baad xusaysaa. markaad sujuudayso subxaana rabbiya alaclaa baad leedahay ilaahay. si kastoo aad samayso markaad ataxiyaadsanayso ilaahay baad xusaysaa. markaasaa waxaa la leeyahay salaadaba waxaad u oogaysaa inaad ilaahay xusto. faacbudnii waaqimi الصalaata lidikri. nebi muuse markii ilaahay la hadlayay muxuu yidhi inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii
وأقم الصلاة لذكري. أيها الأحبة، عبادته هدي ويدو حسك إلهي وإسكان نقطون أعمال الصمين أيوه قيمة بدن ما يالته. صلاة حجك صومك وحن ودن وحن معناه الصمية إن إلهي لو حصيه ضد الصومة يقول ربينا يا ما يصلوبان ما عفمات هلا مكان هلا، لكن وحي معنى لا يضي صومكم مركز إلهي كحصيش سبحانه وتعالى. حجكم وحي معنى السمين يا مركز إلهي لو حصيه. صلاة وحي معنى السمين يا مركز إلهي لو حصيه. ساس الدرادات بقى عبادات كان نحن يقولنا إلهي وحليه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واذكروا الله في أيام معدودات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. حجكي ودن وحمل كستو لجوغو إلهي تلماميا إن إلهي لو حصه أعماشه هو نفسنا حج بالقبطه. وهنا ترى لا إله إلا الله وحده لا شريك له سي حديث تلمامس خير ما قلت أنا والنبيين أو خير الدعاء في يوم عرفة دعاء وحو خير بدل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وإلهي حسكي صومك إلهي معلي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الأحبة، إلهي حسكيس وهو حق قلبي وكل نولاته وقفكو إلهي اللويني اللويني دي سكالوين مخلوقات كردن سادران ديد باد إلهي كهر مرينيسا حسوس دي سواح والبا dadka marka khalqigu la weyn yahay dadka istusaan ama magac ka raadiyaan ama maamuus ka raadiyaan ama qurbiyo dhawaashiye ka raadiyaan. لكن مؤمن كحقيقي آهي إلهي ما مخلوق كلوين سيدا درادين إلهي بو كرادين يا دوانشيو يا ماموس يا مقعبة سأوجد وحكستو وقبنا يا إلهي با مقضى إلهي بحصي سبحانه وتعالى. إلهي نوحي نوبر لنقاضي أدينو إلهي حصنه إنه حسلوني الدقناشي هلينو مضرا وولدكا مدوليدا عصب xanuunada ugu badan ee bini aadamka ku dhaca waxa kamid ah xanuunada nafsiga psychological problems psychological disorders waxyaabaha xanuunada maskaxda ku dhacaya nafta warwar iyo walbahaar iyo walaac iyo deganaanshiyo la'aan iyo stress iyo wax la mid ah. ilaahayna wuxuu leeyahay alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri llah ala bi dhikri llahi tatma'innu alqulub. kuwa iimaanka laga helay ee qalbiyadoodu ku xasileen baa ilaahay leeyahay ilaahay xuskiisa alaa bidikri llaahi tatma'innu alquluub baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay xuskiisa ayaa qalbiyadu ku xasilaan. nusuus badan oo baabkaa tilmaamaysa inuu dib ka tilmaamay, laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam isla wuxuu inoo sheegay qofka ilaahay xusa iyo qofka ilaaba inay la mid yihiin qof dhintay iyo qof nool. qof dhintay iyo qof nool maxaa u dhaxeeya? soo wax fogi uma kala dhaxeeyaan. bini aadamku markuu dhinto magac male maamuus male waxba male meydka unbaa la yidhaahdaa. haddaad shalayta taajirka dunida ugu weyn ahayd ama madaxweyne ahayd ama boqor ahayd ama kan ahayd cidina odhan mayso boqorka xagga u duwa meydka xaggaa geeyuunbaa lagu odhanayaa. xataa magacaagii caadiga habaad waayeysa hebel in lagu yidhaahdo xataa heli maysa. wax walaa dunida ku haysayba marka naftu kaa baxdo way kaa dhamaanayaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu leeyahy mathalu alladii yadkuru rabbah walladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi walmayit. xadiisku saxiixaynka ku yaal qofka ilaahay xusa iyo qofka aan ilaahay xusini waxay la mid yihiin buu nabigu leeyahy qof nool iyo qof dhintay farqa u dhaxeeya waxa uu nabigu tilmaamay riwaayad imaam muslim uu warinayo guriga ilaahay lagu xuso iyo guriga aan ilaahay lagu xusini meydka iyo nolosha inay la mid yihiin.
وحاو النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي حديث صحيحين كصاروري إن إلهي يري أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا وقفك وحي قم ليسنا يوم بان كسب نيبا إلهي لي هدو يحصوص طو يحصو أنا وان حصابا إلهي لي هدو يسوي نفتي سونا حصو أن نفتي ذاك حصابا إلهي هدو ضد يقدر حصو أن ملأ قولك خير بدل قوله يقع حصيبا كحصابا لله سبحانه وتعالى أدونك يقول هدو تاكي يسور دوادا دراع نردن بانو سور دوادا با إله إليه هدو أدونك يقول نردن يسور دوادا نباع شوق يسان سور دوادا هدو يساقو صعانا يا إيما دنانو أرد يانو وحاصر دم محيط المامية انت آد إلهي ودواتي حصتا إن كبضن إن إلهينا سبحانه وتعالى وحصيو كون سور دوينيو أيها الأحبة waxay culimada qaar yidhaahdaan haddaan dikriga ilaahay fadiilada alla sheegay mooyaane inuu ina xusayo mooyaane fadiilo kaleba haddaan loo sheegin lakafat bihi fadiila taasaa ugu filan baa la yidhaahdaa sharaf iyo maamuus iyo inaad ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa badiso intaa waxaa dheer oo nusuusta qur-aan iyo xadiid badaniba tilmaamaya ilaahay xuskiisa iyo shayaadiintu inaanay meel wada gelin markaad ilaahay xusto shaydaanku inuu cararo ilaahay haddaad xusto shaydaanku wuu ka hadhaya casrigan dambe dadku jiman iyo il iyo maxaa la yidhaahdaa sixir iyo wax jiman ku saabsan iyo shayaadiin bay tilmaamaan ilaahay xuskiisa haddaad badiso culimmadu waxay leeyihin waa xaqiiqa xataa hadduu ku galay inuu kaa baxayo laakiin dadkaan laazimin maalin iyo laba waxoogaa ka dhagdhagsiinaya deetana uu iska daynaya kullamaa xuskaagu sii bataba shaydaanka ducfigiisaa badanaya adkaysigiisaa yaraanaya hadduu maarid kasta ahaa bay culammadu yidhaahdaan ilaahay dikrigiisaa kaxeeya haddaad qur-aanka iyo salliga nebiga iyo laa ilaaha illa allah badsato kuwaasaa kaa kaxaynaya innagu aw hebel u tag iyo aw hebel u tag baa madaxeenna ka buuxa laakiin ilaahay ku xidhan way ku yartayba سأوجد النبي وحول عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم صار قفكم مركو جورجي صاقله هدو إلهي حصو مركو جورجي جليو هي مركو عناد عنا يبا شيطان كان وحول هذا لا مبيت لكم ولا عشاء هل كان هياتي هي عنا طوانا مطالو هدانو سيقفكم مركو جورجي جليو إلهي حسين shaydaanku wuxuu yidhaahdaa waa soo gaadhnay waa soo haleelay deganaanshiyo hoyaatin iyo cunaba waa helay buu yidhaahdaa almabiit walcashaa labadaba waa helay maxaa inaad shaydaanka iska erida ku filan bismillah inaad tidhaahdo markaad gurigaaga galayso cunada markaad cunayso inaad bismillah tidhaahdo bale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ee abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkood ba wariyeen qofku markuu gurigiisa ka baxayo هدو يرهض بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وستحر يقوبا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحال الله يرهض قفك سيو الله يرهض حسبك قد كفيت وهديت ووقيت وحسبك بالله يرهض نيو أما قبريي والغوغو في الله oo waa lagu hanuuniyey oo waa lagu ilaaliyey baa la yidhahdaa intaa haddaad la timaado shaytaankuna markay kulmaan shaytaanka kale wuxuu ku yidhaahdaa kayfa laka birajulin qad kufiya wahudiya wawuqiya sideed shaqo uga qaban kartaa nin lagu filaaday xagga rabbi lagaga filaaday oo la hanuuniyey oo la ilaaliyey idan insurance ma rabta haddaad gurigaaga ka baxda balaayooyinka in alla ku dhaafiyo intan dhabuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام وحكى لي مجرى عمل بني آدم كو قبطول لو غير جب ديه إنه إلهي عذاب كيسكا إلى ليو ذكر الله ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قفك بني آدم كي مصر يا عمل كوفي عن عذاب كدوراه
adduunka haddii lagugu ilaaliyey aakhirana waxa ugu fiicane lagugu ilaalinaya waa ilaahay xuskiisa. ayuha alaxiba, ilaahay xuskiisa aada badsataa waxaad kaga mashquulaysaa laqwiga iyo maxaa la yidhi diyo waxa kan. bini aadamku markuu isu yimaado sheekuu bilaabaa iyo maxaa la yidhi iyo kan iyo maxaa la yidhi macnaheedu waa maxay? waa dikru nnaas. dad baad xusaysaa, reer hebel baa duulay, qolo kale caynkan yeeshay, siyaasi hebel baa kan yidhi, heblaayaa waxaan samaysay. bini aadam baad xusaysaa halkaad ilaahay ka xusi lahayd. haddaad ilaahay xuskiisa badsato dadka xuskoodaad ilaabaysaa, waxaad kaga mashquulaysaa inaad dadkaba wax ka sheegto. laa mid madaxa walaa mid saaxiiba walaa mid ku dhow walaa mid aa col tihiin, wax sheegoodaba waxaad kaga maarmaysaa inaad ilaahay xusto. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun. sifaadka la isku xidhay waxaa ka mid a salaadda in lagu khushuuco ilaahay dikrigiisu uu dhadhanka u yeesho, iyo laqwiga inaad ka jeesanayso. saa awgeed baa ilaahay wuxuuna leeyahy waqti kasta dikriga ilaahay badiya, xataa markaad salaada ka baxdo. faidaa qadaytum manaasikakum baa ilaah yidhi, manaasigtiinna iyo cibaadaadkiinna markaad dhammaysataan waa xajkii, fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum washadda dikra. carabtii jaahiliyada waxaa caadi ahayd markay xajaane xajka dhammeeyaan ayaa qabaa'ilka iyo reerahu isu faani jireen. dabeetana qolo waliba waxay ka warrami jirtay reerkooda inta nin magaca leh ama waxaan ku jirta ama gabayadooda ama waxaas. cid waliba aabbayaashood bay tirin jirtay. hadday carabtii jaahiliyadii saa samayn jirtay dee soomaaliduna way samaysaa. cid waliba reerahooda reeraha iyaga kale ka adka iyo caynkan baanu ahaan jirnay, reerkiina faankiisaad wadaa. ilaahay wuxuu yidhi fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum. sidaa reerihiina u sheegtaan ama si ka badan ilaahay u sheega baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. waa markii xajka laga baxay. salaada marka la dhammeeyo ilaahay muxuu yidhi faidaa qudiyat الsalaatu fantashiruu fi lard wاbtaguu min fadli illah wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun. faidaa qadaytum الsalaata fadkuruu llaha qiyaama waqcuuda wcalaa junuubikum. war salaada markaad dhammaysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xoogsi taga, laakiin ha ilaabina ilaahay xuskiisa aada u xusa. adoo shaqo kala qabanaya ilaahay aada u xus. dadka saalixiinta waxaa laga sheegay in sheekha wuxuu ka warramay hooyadii. wuxuu yihi hooyaday marka ay raashinka karinayso waxay ku qiyaasan jirtay wardigeeda. waxay tidhahdaa shaygaasi wuxuu ku bislaadaa 1 subxaan allah, kaasina wuxuu ku bislaadaa 2,000 oo laa ilaaha illa allah. macnaheedu waa maxay? halkaad imanka ka tidhaahdaan microwaveka ku shid ama maxaa la yidhaahdaa ovenka shid 20 daqiiqaha ku jiro ayay iyadu wardi tirinaysay. waxay leedahay markaad 2,000 goor laa ilaaha illa allah tidhaahdo shaygu bislaada. idan waxay karinaysay bay waxay garatay inay uga dhigto miqyaaska lagu qiyaasayo wardiga intay akhri karto. waxay culamadu yidhaahdaan, culamada badh baa waxay odhan jireen safarkiisa wuxuu ku qiyaasi jiray qur-aanka uu akhriyo. meel heblaayo intaan 4 jis akhriyaa baan ku gaadhaa buu yidhaahdaa. yacni waxa uu miqyaasa halkaynu inagu ka nidhaahno saacad baa lagu gaadhaa ama nus saaca lagu gaadhaa, wuxuu leeyahay 4 jis baa kugu filan. marka intaad sii socotaa 4 jis baad akhriyaysaa, meeshii baad gaadhaysaa buu leeyahay. dadka kani markaa waxaa ka muuqda ilaahay dikrigiisu siduu qiimo ugu samaynayo, ilaa ayay masaafaadka iyo zamanka iyo wax walba qiyaas uga dhigteen wardiga ay wardinayaan. waa kuwa ilaahay markaa leeyahay haddaad salaad tukataan ama manaasigtiina dhammaysataan ama kan samaysaan ilaahay xuskiisa wada. haddaad fadhidaan iyo haddaad sare joogtaan iyo haddaad maxay jiiftaanba sameeya. ayuha alaxiba, cagsigeeda ilaahay wuxuu tilmaamayaa qaswat lqalbi iyo ilaahay dikrigiisku isku meel ma galaan. dikriga ilaahay haddaad qalbi adag iska dareento wardiga badso, ilaahay xuskiisa badso, qalbigaaga wuu jilcaya. fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. si awgeed bay culammadu waxay yidhahdaan dikru llahi tacaala dawaa wa dikru naasi daa bay yidhahdaan. ilaahay xuskiisuna waa dawo, nafta iyo noloshaba daweeyiya aakhiraba. bini aadamka sheegsheegiisuna
وحنون. أيها الأحبة، وحبضن بدن با إلهي حسكي سكحرا، إلهي حسكي سوحو كان نعمدنا إن لهله، نقمضة نبتنا إن لفيده، إلهي حسكي ساكانا. الأنس مع الله أيو كان إن الإلهي وهشته أيو كان إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسو سأوجد قف كستو إلهي ذكر جيسا بتصدا نرشا دندن يمعان السميسة وايو إساقا وحوال با واركا إنو يهي مفتاح كل شيء. إنك مركا إنو حانو صنو waxay ugu horeeyay madaxeena ku soo dhacaa waan akhtarinaynu raadino. haddii dhibaato dhaqaale ku qabsato waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhaca waa asxaabta iyo qaraabadaadii iyo dadkii waxaystay. ma hooyada baad la hadashaa, ma adeerkaa baad la hadashaa, ma aabbaha baad la maynaade mid waxaysto reerka ka mid ah inaad markiiba tidhaahda mushkiladda dhaqaale hebel ula tag. laakiin waxaa ka horeysa wax kastoo dhib oo ku qabsatay inaad xagga ilaahay la qabato. xagga ilaahay inaad la qabataana waa inaad uun isaga aada u xusta. ilaahay muxuu leeyahy faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نبي الله نوح يقول يتولكي ور إلهي استغفارتي سأقولك علي وبتصد إلهي ومد دمبك دافين. هداد استغفارت بتصدام بولاي عركا روب شوكتا الله ينكسينيا وحكا له إلهي يدنكو داقيا حول إيا عروريا وحاوبا هنتين با إلهي واجنسينيا حقاد waxaa ka helaysa sabab wuxuu uga dhigay in Ilaahay uu istighfaartiisa la badsado oo la toobad keeno. waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam xadiidka loo saxiixa Ubay ibn Ka'b saxaabigii la oran jiray ayaa wuxuu yidhi Ilaahay nabigii buu ku leeyahay Ilaahay rasuulkiisiiyo salligaan adiga kugu salliyo waan tiro badiyay imisaan ka dhiga. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaad doonto ka dhigo. wuxuu yidhi rubuc ma ka dhiga, yacni ducadayda iyo waxayga oo dhan rubuc ka mid ah 4 meelood oo meel kuwata adiga ma ka dhiga salligaaga. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaad doonto ka dhigo, haddaad ka kordhisa intaana khayrunba kuu ziyaadaya. markaasuu yidhi haddaan nus baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi intaad doonto ka dhigi, haddaad ka ziyaadiso nuskaana khayr baa kuu kordhi. markaasuu yidhi haddaad 3 meelood oo 2 meelood baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ka ziyaadisana khayr baa kuu kordhi. markaasuu ku yidhi haddaad ducadayda oo dhanba salliga nebigaan ka dhigaya. markaasuu nabigu wuxuu ugu jawaabay idan tukfaa hammak wayugfar laka dambuk. warwarkaaga waa lagaaga filaan buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, dembigaagana waa la dhaafay. salliga aynu nabiga ku salliyayno calayhi salaatu wasalaam oo aada badsataa wuxuu nabigu tilmaamayaa inuu keensanayo in warwarkaaga lagaaga filaanayo, ilaahay kaaga filaanayo. wuxuu kaloo keensanayaa baa layidhi in dembigaaga alla kuu dhaafo subxaanahu wa tacaala. وصلي النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن قصة لنا يصو معنيش وحويا إن إلهي وحو أما النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامة قفدوا وناقدين سمايا وأبال جدا هداد واحد وأبال جدا ويدان والدعاء يبال يدو أمانة نبي أبال بينه ولا يتربضا الدين كانوا نبي نسوق عرسي سكلوا إنه أبال جدا ما شرته إنه إلهي وبرنا موياني إلهي بريديسا marka inaga wax ku raadinayna inaga wax tarino tahay wax tarka inoo tahay waxa kamid ah nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam markaasi in maxay aynu ku helayno shukrina qaayno la nimi inaynu ku helayno in hamigeena Allah subhanahu wa ta'ala tirtiro waxayna warwar gelinayeen hadii mashkalada ku qabsato halka fadhiiso inta tusbaxa qaadato salliga nabiga tarabadi kuma ku salli warwarkaaga si uu ka baabaaya dambigaagana waa la dhaafayaa baa la yidhi. ilaahay quraanka wuxuu tilmaamay anbiyo badan inooga waramaya mashaakil qabsaday oo xal looga dhigay inay ilaahay dikrigiisa badsadaan waa mashaakil adduunyo ka aakhirana
حلبوي مشاكل الدنيا وحلك ويا محاكم ده إلهي حسكيس وحاكم ده ضيق الصدر عديدي انت بدن بني ادم كعديدي نفط قرمة الماء نين شيخ وحاكم مغلي مهما صوماليادو ترى هذا بيقولي دنقدو اما اشوي قبوده اري وسيما قبوه بيقولي يعني هدي مقول له نفطه ان يركدي بحنونك وكابايا لكن هدي لو ماغا اما لو عايو هورو كاغما بايو مدة نفط حقنيسا waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagayo cid baa wax ku tuleeyo magacaaga hoos loo dhigayo waa naftu wax iska celiya waxbay kugu akhriyaysaa tiro badan leh marka xoqashadeedu hore uma qabowda bay Soomaalidu tiraahdaa ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay nabi maxamed waa la caayay waa la maagay waa sixroole la yidhi waa isagoo xaq sheegaya ilaahay markaa muxuu yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi laabtaadu inay cidhiirtoomayso waxay kugula hadlayaan daraaddeed haddii nebi maxamed baa cidhiidhi dareemayo dadka kalena maxaad u malay waa un dadka qof markiiba jawaabta bixiya iyo qof isku daya inuu cadhadiisa qarsado oo ilaahay ajar kaga raadiyo saa daraaddeed nebiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ognahay laabtaadu inay cidhiidhiyoomayso waxa ay dadku kugula hadlayaan daraaddeed iyo cayd iyo maagga ay kugu wadaan ilaahay muxuu dawo uga dhigay markaa laab cidhiidhigan waxaa ka habeynaya saddexdan shay samee baa la yidhi midi waa fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim iyo wixii la mida badso wa kun min asaajidiin baa la yidhi salaadana badso kuwa ilaahay u sujuudana ka mid noqo واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بالليل عبادة هذا كلنا بدي انت إلهي كلا كل ميسو إذن إن التصبيح سطو وصلاتك تو وعباداتك بتصتا وحي دوك تهي عينيك قلبك قلا عينيك قلبك قلا يدوك تهي وحي دوك تهي دباتنا كلام موقتك وقود عضا إلهي وحي نقول رمي النبي الذنون ليداده نبي الله يونس waxaa la ka waramay nabi yuunus in baddu liqday doon laga tuuray baddu liqday haddana xuut halkan maxaa la yidhaha nimiri uu sii liqay nimiri afkii uu galay intaas oo mugdi isagoo ku jira ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fanaadaa fi ظulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aلظaalimiin halkaasuu ka dhawaaqay baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala isagoo leh laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aلظaalimiin ilaahayow cid xaq lagu caabudoo kale ma jirto adiga mooyaane adaa xuma ka hufan oo kuu tasbiixsanaya aniguna daalim baan ahay buu ku dhawaaqa ilaahay muxuu ugu jawaabay faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji اlmu'miniin waa ka aqbalay baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala baryadiisii iyo ducadiisii waanaanu badbaadinay marka ma nebi yuunus bay ku koobantay maya ilaahay wuxuu yihi wakadalika nunji lmu'miniin nebi yuunus wixii qami iyo warwar haystay iyo dhibtii haysatay uu badda ku jiray waanu badbaadinay baa ilaahay yidhi dabaddaa loo soo tufay xeebtaa la keenay dabeetana geed baa ilaahay u beeray yaqtiin la yidhaahdo bocorka kanaad tidhaahdaan bocorku waa antibiotic bocorka iyo bakteeriyaadka iyo duksiga iyo waxaas isku meel ma yimaadaan kaas baa loo beeray isagoo duubdhacsadaa kaa hadduu ismariyo khalaas waa bogsaday uma baahna wax kale ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala waa ka aqbalo waa la badbaadiyey waayo falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaahay yidhi lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun haddii aanu ka mid ahayn kuwii tasbiixda badsan jiray ee in badan ilaahay subxaanahu watacaala u mahadnaqi jiray tasbiixsan jiray cibaadaysan jiray tukan jiray haddaanu kuwa ka mid ahayn baa ilaahay yidhi mushkiladdaa uu ku jiri lahaa mushkiladda maxaa ka saaray waxaa ka saaray wardigiisii iyo dikrigiisii mushkiladda ku qabsatay markaa xalkeeda waxaa ka mid ah ilaahay dikrigiisa cabsida aad cid ka baqayso waxaa ka mid ah xalkeeda ilaahay dikrigiisa oo ninkii dunida aan odhan karno wuu u kibir badnaa
oo boqortooyo laga baqa buu ahaa oo dadka laynaya oo dhib oo dhan geysanaya qur-aanku ka warramay ee taariikhda bini aadamka fircoon buu ahaa ilaahay fircoon buu ka warramay wuxuu dhib dadka ku hayay nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa loo diray nebi muuse wuxuu tilmaamay inuu ka cabsi qabo ninkan inuu dhib u geysto xalka la siiyey markaa muxuu ahaa ilaahay wuxuu ku yidhi idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikrii baa ilaahay yidhi adiga iyo walaalkaa taga oo rasuul baa tiinay nebigaa u taga idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi fircoon waa kibray weliba waa xadgudbaya u taga fircoonkaa laga baqayo ayaa la yidhi waajah maxaa u ah markaa uu isku ilaalinaya ilaahay wuxuu yidhi walaa taniya fii dikri aniga xuskayguna haka noogin haka daalin fircoon waxba kuguma samayn karayo haddaad maxay inanii asmacu wa araa baa ilaahay u tilmaamay anaa dunida maamulo baa ilaahay leeyahay aniguni qabso oo xuska badi wakti aan fogeyn baa nin sheekha iu warrama 3 nin iyagoo abaa gardarro lagu qabtay dabeetana xabsiyada adag xabsi ka mida lagu xidha wuxuu yidhi qur-aan baanu akhrinay tiro badan markaa nin ka mida nimankii baa wuxuu yidhi waryaani qur-aanka haddaan akhrino waan bixi karaynaa jeelkaasi may raacaysaan waan yaro shakiyey buu yidhi waxaan nidhi adigu bal tijaabi qur-aan badan intuu akhriyo buu iska baxay buu yidhi albaabkaa laga furay wuu iska tegey kii labaad baa yidhi buu yidhi waar nisbe ku baxyeennana waa akhriyayna qur-aan badan oo kale aanu akhrinay buu yidhi dabeetana kii labaadna wuu iska tegey buu yidhi wuu iska baxay ninka ii warramaya waa ka saddexaad marka anigu waan yaro shakiyayaa buu yidhi kolba waxaa isleeyahay war nimankii meeshan adag kugu xidhay hadday ku qabtaan waa ku garaacayaan haddane waan isna markii dambe aan sidhi buu yidhi war labadii kaa horreeyayba ku baxee maadadna tijaabisi waan waday buu yidhi wado ana albaabkan ka soo goday buu iska soo baxay oo adigu saad u baxdaan weydiiyey kuwa kale maad arkaynin albaabka markaan marayaa mid igu yidhi buu yidhi meed sala tagaysaa markaasaan ku yidhi buu yidhi haa dabeetana uu ii baneeyey buu yidhi waan iska dhaafa ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa haddaad badsato nabadgelyo iyada kugu filan laakiin inta badan dadku way hilmaamaan sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dagaalada gelaya mujaahidiinta ah war dagaalamoo sugma baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xuskiisa badsada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo haddaad la kulantaan fi'a koox haddaa ishaleeshaan horta ha cararinee sugma baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala gaala haddaad la kulantaan oo dagaal ay tahay sugmo ha cararina maxay kala sameeya baa ilaahay yidhi fadkuruu llaha kaiiran lacalakum tuflixuun ilaahay xuskiisana badsada waxay mudan tihiin inaad guulaysataan baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa deganaanshiye naxariis baa lagu helaa siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya ilaa iyo malaa'igtaa isku weegaarta oo ilaahay naxariistiisa daboosha oo xasillooni baa ilaahay ku soo dejiya oo rabbi baa kuwa agtiisa joogee malaa'igtaa uga warrama waxaas oo nicmo ah maxaa lagu helaya marka xuska ilaahay dhab inaga yihi aynu si dhaba ilaahay u xusayno subxaanahu watacaala cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul meel ma fadhiistaan iyagoon ilaahay xusaynin ilaa iyo nuqsaan bay ku noqotaa ilaa kaana calayhim tiradu waa naqs walan yatirakum acmaalakum yani waa nuqsaan bay ku noqotaa qof ma jira buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rajulun mashaa طariiqan qof waddo maray waan ilaahay xusin ilaa kaana calayhi tira وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة نبي وحط المامي عليه الصلاة والسلام قف فريستي يقف سعطاه يقف جيف سنية وأن إلهي حسيني هدو جرؤون نقصان ما يكون طهيب النبي عليه الصلاة والسلام أجر كاكا نقصامي إلى لنتي حريستي وحي لهلا يبقى نقصامي
wixii wanaagee nusuustu ay tilmaamtay oo dhan baa ka nuqsaamaya. sidaa awgeed maalinta qiyaamo baa la yidhi meel jalsa dadkii soo fadhiistay aan nebigana ku sallin ilaahayna xusinin ilaa kaana calayhim tira fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. دول ميل انت يسوي ما دام ورك لهم مخريان يوانا إلهي بالشيقين إلهي سيدي بخت الدمير دول كدول كعيبين نقضى بالة الماء عن مثل جيفة حمار. أيها الأحبة ساعات كستودوني دا ينسوا أمرتوا إن إلهي حسني خسارة آخرين وطيميد الدنيا بقى. على الأقل وحو نبغو ينط المامي عليه الصلاة والسلام هدي مجلس كاينو فردنا وحوغا لغو يبين كدعدعان مركا ودبيسا إنو كعينو هدينو نراهنو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلهي وحي مجلس كايدن بينا قد عوينو نافيا. على الأقل مركا نسي كعينون هدينو إلهي حسنو wixii aynu qasnay ee dhiba inaga dhacay waa la inaga dhaafaya. ayaa la xiba markaa ilaahay xuskiisa adduunkana waa lagu liibaanaa aakhirana waa lagu liibaanaa.